idinku salaamaya salaanta adduunka ugu qaalisan kana timid qalbi nadiifa salaantaas oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib maanta waxaa ii farxad ah inaan idin soo gudbiyo xoogaa qormo yar oon qoray uguna hadlayo jacaylka. qarniyadii hore jacaylka waxa uu ahaa mid ay dadka aad u qadariyaan aadna u qiimeeyaan. waxaase ognahay in dad badan ay u dhinteen jacaylka halka kuwa kalena dhibaatooyin badan kala kulmeen. dadka baalka lama ilaabaanka ah ka galay taariikhda jacaylka waxaa ka mid ah jacaylkii cilmi boodhar iyo hodan, qays iyo leyla, cantar iyo ceebla. qarnigan aan ku jirno dad badan waxay aaminsan yihiin in jacaylku yahay wax jira halka kuwa kalena ay u haystaan in jacaylku uu yahay wax aan jirin oo ku kooban afka oo kaliya oo aanan uurka jirin. laakiin waxaa xaqiiqo ah in jacaylku yahay wax jira kaasoo ka bilowda ka helitaan iskuna bedela dareen ku abuurma qofka qalbigiisa. dadka aaminsan in jacaylku aan ahayn wax aan jirin waxaan dhihi karnaa waa kuwa aan fahamsaneen waxa uu yahay jacaylka oo aan weli wax jeclaan. jacaylku wuxuu xambaarsan yahay waxyaabo badan kuna noolaan kartid kuna farxad gelinaya marmarka qaar aad murug kala kulmi karto laakiin jacaylkaaga haddii aad xaqiiqda ku hogaamiso kii aad ku hartiin aad farxad ku dhamaysatiin ayuu noqonaa. marka jacaylku waa nolol farxad iyo reenreen. dumarkiina ragga aad ku adkaynaysiin dhaafa iyo ragga aad xumeynaysiin. ragow idinkana dumarka markay jacayl idin sheegtaan ha kibrina ha ku adkaynina hana xumeynina. nolosha dhabta ah waa in liska warhayo mar walba jacayl miro dhal leh, daacadnimo iyo isxushmeyn, kalsooni buuxda oo labada dhinac ka timaada, kala dambeyn waa inuu qofba qofka kale hadalkiisa qadariyaa, baarinimo naxariis fara badan leh. ogaada waa adag yahay jacaylka. haddii aad go'aansateen inaad xiriir jacayl samaysataan waa inaad u lahaataan dhabar adeeg, dulqaad, samir iyo kalsooni. ciyaarna inaad ka dhigataan ma ahan. ma fiicno inaad qalbiyadiina isku furtaan kadibna aad kala waayo nolosha waa qaali, da'duna waa sidii uu bixiyo kale. noloshana aad u jeediin waa maalmo kooban, jacaylkana waa hal mar. ragga waxaan leeyahay dumar la'aantooda dad manihin ee ragoo damiir laawayaal ha noqonina, u diirnaxa dumarkoo idil. dhammaantiina rag iyo dumarba laysma dhaamee jacaylka ha bastooladeenina. jacaylka in lagu sii dheeraado ma wanaagsano ee waxaa wanaagsan qofka haddaad isfahantaan inaad isguursataan. run ahaantii waxaan arkay dad badan 4 sano iyo ka badan jacayl soo waday. waan la yaabay dadkaas waayo 4 ama ka badan caruur ayay ku dhali kareen. in jacaylka la dhowro, xaaskaad aad xanaaneyso, xafido, xumaantana aad ka ilaaliso waa waajib ku saaran markasta. iyo qofta aad jeceshahay inaad mar walbo khiyaanada ka ilaaliso. guurka kadib iyo ka hor inaad daacad u ahaato jacaylka oo aad ka ilaaliso khiyaanada waa mid muhiimadeeda leh oo sare u qaadaysa kalsoonida lamaanayaasha isjecel. qofka aad jeceshahay haddaad isfahantaan waa inaad isguursataan oo aad miro u yeeshaan jacaylka ay aad muddada badan soo wadeen. in lagu dheeraado jacaylka oo aan laga miro dhalin ma fiicno, waa guuldaro. laakiin waxaa habboon intaad isku fahmi kartaan inaad wada socotaan kadibna aad ka tashataan aayihiina dhow iyo mid ka fogba. ugu dambeyn mudanayaal iyo marweyn, jacaylku waa dhab ee qiimeeya sharaftiisa yaa looga dhicin meel. saas ayaan leeyahay waana wax lagu farxo oo la muujiyo ee ogaada ma ahan wax la qarqarayo sida dadka qaarkii u fahmeen. xiriirka jacaylka markasta ha lagu maamulo daacadnimo, is-aaminaad iyo isu dulqaadasho. waana hubaal inaad ka guuleysan